hortiina u soo istaagay inaan u caddeeyo madaxda qaranka ee xilkan igu aamintay iyo dadka aan matalaba mudnaanteeda koowaad waa matalidda muwaadinka caadiga ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale muqdishaawiga adduunyada meel kasta kaga nool ee mudan in si cadaalad ah loogu adeego wuxuu ahay waxqabad aad iyo aad u ballaaran ay qabteen gudoomiyaasha cusub oo hadda magacaabay oo haweenka u badan oo mataqaanay aad iyo aad u shaqeynaya waxaan aragnay meelo far badan oo shaqo laga hayo oo maanta xafiiska gobolka hadda tagto aan feel loogu jirno xafiiska gudoomiyaha gobolka hadduu maqan yahay iyo hadduu joogaba shaqada si siman ee runtii u socoto waxyaabaha la taaban karo boqolka maalmood intii hadda joogeen aan ku ammaani karno oo la arkay oo muuqdayna runtii ka mid tahay sida shaqaalihii gobolka banaadir loo habeeyey hadday ahaan lahayd qaabka salarigooda loo siiyo oo aan aad ugu farxay u doonanayaan qof walba akoonkiisa ugu soo dhacayso waa qaab maamul oo runtii aan horay gobolka banaadir uga dhicin aan u beegsanahay ummadda Soomaaliyeedna ay hadal haysi u beegsan tahay hawshu waxay ahayd mid aad u ballaaran waqtiguna aad u koobnaa hase ahaatee waxaa la hirgeliyey in ka badan inta uu qorsho u ahaa taas oo ay ku tahmayeen dadka muqdishaawiyiinta ah haddaba intaas iyo in ka badan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa boqolka cishe ee gudoomiye Taabid iyo maamulkiisa daqiiqadaha soo socda 27 sano ee ugu dambeeyay marxaladii kala duwanaa oo ay soo martay magaalada Muqdisho sanadba sanadkii ka dambeeyay waqtigan waxay ku jirtaa xilligii ugu wanaagsanaa canshuurta aan idinka qaadno waxaan ku bixin doonaa horumarkiina iyo daryeelkiina dadka canshuurta laga qaaday waxaan ugu bishaareynaa sidaas ayaan dadku ugu celinaa ilaahay idinkiisna waa sii wadeena ilaahay nuu ogyahay waa ballan anaga shilinka la qaado inaan dadka ku celino sidaan uga qaadno iyo sidaan ugu celinayno qofka uu arkay aysan hadal kaliya noqon waa halkudhiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo xilligan aan ka hadli doono waxqabadkiisa boqolkii maalmood ee la soo dhaafay waa maamul joogitaankiisa kooban yahay waxqabadkiisana uu badan yahay waxa uu la yimid habab cusub iyo dadaalo lagu horumarinaya howlaha horyaala ee ay ka sugayaan bulshada caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed magacaabistiisa kadib waxaa 13 Abriil ee sanadkan uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweyn weyn u sameeyay dadweyne isugu jira shacab iyo madax markii la magacaabay gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed 6 bishii Abriil ee sanadkan 2017 iyada uu xilka la wareegay 15 Abriil isagoo ka hadlaya munaasabadda uu xilka kula wareegayay waxa uu sheegay in uu xoog saari doono sareynta sharciga ama cadaaladda iyo wax walba oo lagu horumarinaya bilicda Muqdisho waxaan ahay qof ilaalinaya sharafta Soomaalinimada waxaana doonayaa in aan maanta hortiina ka sheego intiina halkan joogta dadka reer Muqdisho iyo Soomaalida oo dhan meel kasta oo ay joogaan kuwa si sharci ah iyo kuwa si aan sharci ahayn ku jooga dalal shisheeye ee dunida ka mid ah iyo kuwa saaran maraakiib ee ka gooshaya badda Mediterranean-ka ama badda Carabeed iyaga oo socdaal ah ama tahriibaya in aan idinku adeegi doono si cadaalad iyo sinaan ay ku dheehan tahay insha Allah intaas kadib mudane Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu si ka fiirsasho leh
u bilaabay nidaaminta maamulkiisa hoose isagoo la yimid maamul fursad ballaaran laga siiyey haweenka. dumarka runtii waa lafdhabarta wadanka oo loona baahan yahay qayb kasta oo dawladda ka mid ah inay ka qayb qaataan level kasta ay noqoto ilaa iyo hoos ilaa iyo kor inay ka muuqdaan go'aamada lagu gaarayo maxaa la dhahaa miisaska iyo horumarka iyo siyaasadda wadanka dumarka waa inay ku lahaadaan qayb lixaad leh. waxyaabaha aad iyo aad ay bulshada ugu farxeen inteeda badan dumar badan oo dhalinyaro oo aan arkayna aad u farxad geliya waxay tahay go'aanka ay qaateen maamulka gobolka Banaadir siba gudoomiyaha gobolka Banaadir ee geesinimada lahaa markii ugu horeysay intaasoo sano in gobolka Banaadir ay ka soo dhex muuqdaan 5 haween ah oo degmooyinkii gobolka Banaadir kala haayo. waxaan arkaysaa in maalintii xilkan uu ku wareejinayay xilka waxa wada fadhiyo waxay ahaayeen gudoomiyaal rag ah. haddana maanta waxaa dhici karta markii xilka sidoo kale la wareejinayo dumar badan oo maalintaas aan soo haweysanayn inay soo haweysanayaan oo siyaasadda ay soo galayaan. waa dareemi kartaa doorka haweenka uu ka aaminsan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir marka xogayaha guud ee gobolka haddana inay gabar noqoto wax la yaab leh ay nagu noqotay anaga ka haweenka gobolka Banaadir ahaan isla markiiba waxaan ugu talagalnay soo dhaweyn xaflad munaasabada oo aan ku soo dhaweynayno gudoomiyaha gobolka Banaadir 60 sano kadib waa markii ugu horeysay taariikhda maamul gobolka Banaadir ay ka mid noqdaan 2 xubnood oo sare iyo 5 gudoomiye degmo haddana inaan helno oo 7 xubnood aan saas aan maaragtay maanta ku haysano. marka taas waa sida runtii gudoomiye taabidna sida lagu yaqaan hadeer waa qof runtii aad iyo aad ugu dadaala kuna dhaqaaqa horumarka dumarka. waxaa ka garan kartaa kaliya adeegiisa iyo geesinimadiisa oo 7 gabdhood maamulkiisa uu kusoo daray runtii asagana yani wuxuu mudan yahay ammaan in uu tilaabadaas qaatay. gudoomiyaha gobolka Banaadir markii ugu horeysay ayuu wax ka bedelay qaabka loo bixinaya mushaaraadka shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir. waxaan ku guuleysanay in mushaaraadka aan bixino aan ku bixino qaab oo standard ah international ah aan yareeno lacagaha cadaanka ah oo lagu hayo xafiisyada qof walba oo shaqaale oo dawladda u shaqeeyo bisha markay dhamaato mushaarkiisa waxay ugu dhacdaa account uu leeyahay. qof kasta oo service non qabanayana waxaan ku dadaalnaa inaan ku qasabno in account uu furto hadduusan lahayn hadduu account uu leeyahayna aan accountkiisa ugu shubno si qarashaadka naga baxaaya ay u yeeshaan raadraac oo biri markii nalala xisaabtamayo aan soo bandhigi karno qaabka ay ku baxeen. gudoomiyaha waxa uu soo kordhiyey muddo 27 sano kadib system cusub oo lacagta mushaaraadka lagu siinaya shaqaalaha iyadoo uu hirgeliyey in shaqaale kaste ay akoonkiisa si toos ah ugu soo dhacayso mushaarkiisa isla markaana uu suuro geliyey in mushaarkooda si joogto ah 28 bisha loogu shubo akoonkooda. wuxuu runtii kaga duwan barnaamijka sida aan sheegay barnaamij electronic online ah waana barnaamij runtii ah standardka ama heerka bangiga adduunka oo aqbalayo iyo hay'adda lacagta adduunka ee World Bank iyo IMF labada hay'adda lacagta adduunka ayadana IMF-ta waa heer oo standardkooda ah iyo sidoo kalena waa mid la mid ah sida kan dawladda dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee dalku maamusho oo dhan asaga waa midkiisi oo kale oo anaga isticmaalnay standardkaas ayuu kaga duwan yahay waxyaabihii hore oo dhan iyo sidoo kalena waa electronic waana daahfuran dadkuna way arkaan. waxa ilaahay mahadiisa markaan anaga joogno muddo kooban waxaan suurtagelin horta wax la yiraahdo aan cash inaan gabi ahaanba ka joojino gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar. maanta qofka mushaarka qaadanaya ha yaraado ha badnaado heerar kala duwan mushaaraadka lagu qaato qof kasta oo gobolka Banaadir maanta ka shaqeeya oo aniga aan ku jiro account u leeyahay qof kastana accountkiisa ayaa lacagta loogu diraa maadaama account lacagta loogu diro cash meesha lagu ma arko. waxaa sidoo kale systemkaasi cusub uu fududeynayaa isla xisaabtanka iyo ciribtirka musuqmaasuqa. magaalada Muqdisho ayaa muddada rubac qarniga oo ay burbursaneed waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay maqaamka caasimadda. hase ahaatee maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay hirgelinta barnaamij loogu magac daray ololaha aragti wadaagga muqdishaawiyiinta ee hiigsiga caasimadda. maamulka gobolka Banaadir waxaa guud u ah in la diyaariyo hiigsiga caasimadda oo leh qayb kala duwan
dhanka siyaasadda, horumarinta, dhaqaalaha iyo dhammaan adeeg bulshado. Daadejinta maamulka oo shacabka uu noqonayso dareen lahaansho ee ku aadan wada shaqaynta gobolka iyo kala wadaag ku dhisan is-aaminaad iyo hubnaan. ololahani oo loogu golinayahay xalinta baahiyaha ka jira degmooyinka gobolka iyo in bulshada reer muqdisho ay door ku yeeshaan qaabka ay doonayaan in lagu hogaamiyo caasimadda. anigoo raba inaan ka codsado dadka halkan wada jooga dhammaantood aragtidiinna muhiim ayay noo tahay. muwaadin kasta oo aragtidiisa soo gudbiyo daraasad cilmiyeysana laga samaynaa aragtidaada ayaa annaga muhiim noo ah inaan adiga kuugu adeegno ilaahay idinkiisa. marka aragtidaada waa muhiim fadlan. muqdishaawiyow oo degmada xamureyna ku nool waa sidee adeega aasaasiga ee degmadaada sida biyaha, korontada, nadaafadda, cayaaraha, waxbarashada iyo caafimaadka waa sidee? ka jawaabista baahida qeybaha bulshada waa tusaale cad oo sidii qoraxdii uga dhex ifayey dhaqdhaqaaqyadiisa ugu horeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed. warbaahinta ayuu si muuqata uga gacan siinayey horumarinta barnaamijyadooda ku salaysan wacyigelinta bulshada si loo helo dariiq toosan oo xiriirin kara maamulka iyo bulshada. inaan ku baraarujiyo saaxiibada warta nabadda iyo dadka 17 degmo ee gobolka banaadir howlaha amniga ee socdo. waxaan fadlan u baaqayaa dadka inay nagala shaqeeyaan howlaha amniga oo aysan kaliya ku halayn hay'adaha amniga oo kaliya ama boolis ha noqoto ama nabad sugid ha noqoto ama qaybo kale ha noqoto kala duwan ama maamulka gobolka ha noqoto kaliya inaan lagu halayn laakiin dadku ay kala qayb qaataan. gudoomiye taabid cabdi maxamed ayaa sheegay inuu u taagan yahay difaacidda dadka dulman gaar ahaan dadka hantidooda sida sharci darrada ah looga haysto. waxaana muddadii koobneed ee uu joogay dib guryahoodii loogu celiyey muwaadiniin si sharci darro ah looga haystay hantidooda. ummadda Soomaaliyeed cadaalad darro ayaa ragaadisay muddo fara badan gaar ahaan arrimaha dhulka. aniguna inta aan joogo ma dhacayso mana qaadanayo mana yeelayo inay cadaalad darro ka dhacdo arrimaha dhulka. qof kasta oo dhulka haystana maalintay doontaba waa uga daba tegaynaa ilaahay idinkiisa insha Allah. haddana raadkii waa bilaabna talaabadeena waana ku raad joognaa in cadaalad darro dadka ragaadisay gaar ahaan arrimaha dhulka iyo guryaha aslanba ay soo afjarantay insha Allah dhawaan. waxa uu si shakhsi ah uga soo dhex muuqday gudoomiye taabid ololaha bilic ku soo celinta caasimadda kuwaasoo si dardar leh looga hirgeliyey magaalada muqdisho. naskii iyo kutubteennu sidayna jaxsheen na faray maamulkeennu iimaanka nuskiisa nadaafadaba ah. nadiifi hortaada nalee gurigaaga nac wixii qashinoo dhan banaadir ha noqtee. goobo dhowr oo laga quustay iyo 10 sano isticmaalkooda la gabay ayuu rajadoodii dib u soo celiyey sida waddada kacaan ama loo yaqaano cirtogte ee ku taala dhanka galbeed ee suuqa bakaaraha. waddadaasi 15 sano ayaa ugu dambaystay isticmaalkeeda balse waxaa 5 maalmood gudahooda dowladda hoose xamar ku guulaysatay in waddadaasi wejigii hore weji ka duwan loo yeelo. maanta waxaan taagannahay waddadii kacaan laakiin dadka qaarkood ay u yaqaanaan cirtogte laakiin waddadan marka hore caadiyan ka soo bilaabato isgoyska shaqaalaha ilaa iyo ku dhamaato warshadaha laakiin hadda aan dabka ka soo bilaabato ku dhamaato ilaa iyo warshadaha laakiin hadda inta aan ka shaqeynay oo dhowr 20 sano oo baabuurra aysan marin oo xayirneed sida ka aragteen 29 bishii oo aan halkan ka bilaabno ololaha nadaafadda aan ka soo bilaabanayso isgoyska bakaaraha ilaa iyo isgoyska Blacksea. waddadaas oo hadda aad aragtaan gadaasheeda sida ay hadda u eg tahay iyo maalin dhow markaa imaanaysa sida ay ahayd waxay ilaahay mahadiis iska lena warqad soo dhamaysanay waddadii hagaajinteedii gaar ahaan ololaha nadaafadda aan soo hagaajinay oo maanta ay suurto gashay gawaarida inay isku gudbaan ay maraan waddadan. awalna xataa dadka aysan isku gudbi karin oo dadka ay samaysteen buunda ay ku gudbaan. marka taas waa ilaahay mahadiis. waxaa la ruujiyey ama gebi ahaanba la baabi'iyey qashinkii buuraha ka samaysnaa ee deegaanka jasiira kuwaasoo halis ku ahaa bilicda caasimadda iyo caafimaadka bulshada. haddii aan fiirno dhinaca dhismaha waddooyinka caasimadda waxaa meel laxa maraysa waddada soddonka halkaasoo ay mariddeeda mahadiyeen wadayaasha gaadiidka iyo milkiilayaasha meheradaha ganacsi.
wadada والله aad uga faa'iidnimo sidoo hore waa ka fiican tahay hadana cafeteriyaal iyo maqaayado waxyaabo waaweyn laga soo bixiyo wadada isbarbaas biseed jawna baawrta bis lagu soo bixiyo hada laakiin wadada waxay noqotay bulsho ilaa 7 saac inuu fiinta lagu gaari karo waa ku faraxsanahay sida maaragtay loo dhisay insha Allah in waliba la sii maaragtay habeeyana waa jecelna insha Allah hadana macnaha nadiif waa saad u muroonaysa waagta u jeedin mo waana ku maasantaa macnaha dawladda noo dhisay dadka noo keenay wadada inay noo dhisaan waxaa sidoo kale gunaanad ku dhow wadada Xaawo Casir ee isku xirta isgoosyada Kaaraan iyo Xaawo Casir sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa muddo dhowr sano kadib waxa uu furay wadada 26 Juun ee isku xirta isgooska shaqaalaha ilaa isgooska Baraka ee degmada Hodan si loo fududeeyo isku socodka gaadiidka dadweynaha loona yareeyo mashquulka xoogan ee ka jira wadooyinka qaar ee ku yaala caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa balanqaadyo dhaxalgal ah bulshada u sameeyay waxaana balanqaadyadaasi ka mid ahaa in xarumo waxbarasho oo bilaash ah laga sameyn doono degmo kasta oo ku yaala gobolka Banaadir isla markaasna degmooyinka laga hirgelin doono xarumo ay dhalinyarada u dalxiis tagaan qorshaha noo samaysan oo aan hirgelin doono mar dhow iskuulaadka waxbarasho la'aanta oo lacag la'aanta oo ilmaha ilaa iyo dugsi dhexe lacag la'aan lagu siiyo iyo isbitaalaadka iyo sidoo kale imkaaniyaad kala duwan oo adeega aasaasiga guud ahaantiisa إن شاء الله تعالى أنت أنجوجو إن دليرادو أي فرصة وهلان حرمو دليرو أو دقمة كستر لقسم إن شاء الله تعالى وحنسيدو كله إذين بلنقاضية إن شاء الله balanqaadyada dhaxalgalka ah oo uu ka dhabeeyay gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed waxaa ka mid ah in markii ugu horeysay gobolka Banaadir muddo 27 sano kadib laga hirgeliyay xarun waxbarasho oo lacag la'aan ah taasoo loogu faa'iideynaya dadka muqdishaawiinta waana iskuulka taariikhiga ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 50 May ee degmada Warta Nabadda taasoo qayb ka ah qorshaha maamulka gobolka Banaadir uu ku doonaya in degmo kasta laga hirgeliyo xarumo waxbarasho oo lacag la'aan ah maanta maadaama degmada Warta Nabadda ama Wardhiigleed waxbarasho tayo leh ee ka bilaabatay waa sii wadeena ballankii aan qaadnana qayb ka mid ah anagoo 3 bilood ka yar joogno ayaa ballankii aan qaadna qayb ka mid ah aan suurtagelinay 17 degmo waa ka suurtagelin doonaa Wardhiigleedna taariikhdaas ay leeyihiin maamulka gobolka Banaadir ayaa furay tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho oo aan meesha ka saarin dhiirigelinta bahda sportiska ayaa sheegay inuu Amazon kala hadlay sidii ay u banan lahaayeen garoonka Stadium Muqdisho oo muhiim u ah isdhexgalka bulshada nasiib wanaag waxaa farxad leh Amazon inay naga aqbashay ogolaatay inay nagu soo wareejiso garoonka Stadium Muqdisho haddana waxaan ku guda jirnaa dadajinteeda inaan dadajino si gacanteena u soo gasho annagoo wasaaradda sportiga iyo hay'adaha amniga kaashanayno oo mid Soomaaliyeed aan ku farxad gelin maanta Stadium Muqdisho iyo Stadium Muqdisho la yaqaanay in gacanteena uu soo galay annagana hili hoos garab istaagno si aan bilicdiisa u soo celino maadaama astaanta oo nabadda iyo bilicda caasimadda uu yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qurbo-joog Soomaaliyeed qaar ka mid ah qurbo-joogtaasi waxay ganacsiyo waaweyn iyo kuwa yaryarba ku leeyihiin magaalada Nairobi duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa boqolaal Soomaali ah kula kulmay caasimadda Kenya ee Nairobi isagoo ugu baaqay in ay maal gashtaan dalkooda hooyo isla markaasna door ka qaataan dhaqdhaqaaqa xoogan ee lagu horumarinaya caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho walaalayaal waxaan rabaa talada iyo hiil iyo hooda aad nala garab joogtaan had iyo jeerba inaad Muqdisho uga faa'iidaysaan haddii ay noqon lahayd maalgashi
haddii ay noqon lahayd qaybaha kala duwan ama real estate-ka ama haddii ay noqon lahayd xirfadda iyo aqoonta oo aad ka dhaxasheen dalka maanta aad martida u tihiin laakiin aan aaminsanahay inay gurigiina tahay inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu maamulka gobolka Banaadir qoysas danyar u sameeyay mashruucyo kala duwan oo lagu afurinaya kumanaan shacab ah oo aan awoodin inay afur sameystaan qoysaskaasi oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu markii ugu horeysay mushaar u bilaabay ururka dhalinyarada gobolka Banaadir taasoo ah mid dhiirigelinaysa dhalinyaradaasi oo daruufo adag ku soo shaqeynayay muddo fog. waxaa ugu mahad celinaa gudoomiyaha gobolka runaantii dhiirigelinta oo dhiirigeliyay dhalinyarada maalmihii oo mushaaraadka u qoray waxay ahayd maalmihii ku aadneed munaasabadihii maalmaha dhalinyarada 15 May dhalinyaradii waxaa dareenay xafladaha dhalinyarada markay ka qayb galayaan ayagu waxay ka qayb gali jireen dismoraal ah laakiin xafladii hadda munaasabadii 15 May waxaa sababtay dhalinyarada ayagoo dhiiri gashan oo runaantii moraalkooda iyo ayaga dhanba oo maxabeesan inay munaasabadii ka qayb galaan oo mushaaraadkiina loo qoro. gudoomiye Taabid oo mar walba u taagan ka shaqeynta farxadda dhalinyarada reer Muqdisho ayaa ku dhawaad 2,000 oo dhalinyaro oo ka soo jeeda qoysas danyar ah siiyay maalintii ciida lacago ay bulshada kula qaybsadaan farxadda ciida. maanta waxay saaran mas'uuliyad bari qof walba weydiin doono waayo fursaddan dhalinyarada ma aysan heli jirin maadaama fursad dhalinyarada maanta ay heshay inaan hoggaan wanaagsan dhalinyarada u sameeyo taana waxay ka bilaabataa annagu hantida ugu muhiimsan Soomaaliya aan ku tashanay waa dhalinyarada Soomaaliyeed. aniga maanta dadka ugu horeeya aan ku tashto waa dhalinyarada waa sax dadka waaweyn khibradooda taladooda tusaalahooda waan u baahanahay laakiin dal walbaba dhalinyarada ayaa hormariya. boqolka maalin ee uu talada hayo maamulka gobolka Banaadir waxyaabaha aad loogu xasuusto waxaa ka mid ah kaalinta muuqata ee sida cadceedda oo kale aan loo qarin karin taasoo ah ka qayb qaadashada weynaynta munaasabadaha toddobaadka xurriyadda. muwaadin kasta oo Soomaaliyeed goob kasta oo Muqdisho ka joogo waxa uu maqlayay ama ay argiisu arkayeen gugaca bulleerka oo lagu muujinaya in toddobaadkani uu yahay toddobaad qaran oo ku weyn qulubta dadyowga Soomaaliyeed. dabaaldegyadani mid la mid ah ku dhawaad muddo 30 sano ah lagama maqlin mana laga arkin caasimadda. haddii aan u jaleecno dhinaca amniga waxa uu maamulka gobolka Banaadir dhiirigelin iyo garab istaag muuqda la garab istaagay ciidamada amniga. waxa uu booqanayay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulkiisa goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada amniga ee u taagan difaaca sharafta iyo amniga shacabka Soomaaliyeed. alxamdulillah waxaan marka hore u mahad celinay ummadda Soomaaliyeed oo runtii aan inta suurta gashay ee dadku hadda ay ku nasteen amniga nooma suurtagal lahayn annagoo aan ka helin wada shaqeynta shacabka Soomaaliyeed waa uga mahad celinaya gaar ahaan dadka muqdishaaniyiinta ee runtii aad noo kaalmeeyay ee garab galay haddii ay noqon lahayd garab istaaga ciidamada oo howlgalayo iyo haddii ay noqon lahayd in ay si toos ah noola shaqeeyaan ayagoo aan cidna ka baqayn markay arkeen annaga oo yididiilada naga muuqato dadka inaan wax u qabana ah waxaan mahad ballaan u jeedinayaa hay'adaha amniga guud ahaan gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Banaadir asaasidii aan asaasnay golaha amniga ee gobolka Banaadir oo ay ku midaysan yihiin dhammaan hay'adaha amniga ka howlgala gobolka Banaadir iyo xeer ilaalintaba ay ku jiraan ayaa suurtageliyay inaan wax badan amniga ka qabanno. haddaad nalka daarto ninkii wax dilaaya naftaada dhacaya nuxuusiyay warkiiso amniga najaxay. haddaba sidee u arkaan waxqabadka muddada kooban ee maamulka gobolka Banaadir siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka iyo xubnaha baarlamaanka ee matala magaca shacabka. maamulna sidiisa iyo cid walba oo wax qabanaysaa haddaanay laba arrimood lahayn waxba ma qaban karto. haddaanay dhiifoonayn oo ogeyn meelaha wax ka jiraan oo aanay dhiiranayn oo aanay ku dhiiran karin wax dhiifoonidooda ay ka heleen inay ku dhaqaaqaan waxba ma qaban karaan. maamulka waxaa ka muuqanaysa labada arrimood oo ah dhiifooni iyo dhiiranaan. waxaan ilaahay ka baryayaa insha Allah inta hartay faraha badan leh ee gobolkan iyo magaalada Muqdishoba taala in ilaahay noo fududeeyo. waxaa intaas dheer bulshada iyo madaxda way kala taagnaayeen sida aan Soomaalida ku arkaynay laakiin madaxda hadda timid iyo bulshada way isku milan yihiin. nin maanta u baahan madaxda
ee doonayo inuu fakarkiisa gudbiyo u sheego. waxay haystaan madax goobta ay joogaan ugu imaanayo, aan laga celinaynin, dhagaysanayaan. hadday doonaan inay u tagaana daqiiqado gudahood kula kulmaayo fakarkay qabeen, haddii cabasho ay ahayd iyo haddii in ay qaranka wax ku kordhinayaan ay ahayd, gaar ahaan caasimadda. gudoomiyaha shaqada waa kala qaybiyey, shaqo fiican ka socoto. waxaan kaloo arkaynaa shaqaalihii markaan wareysanay mushaarkeena bisha haddii la gaaro kowda bisha akawnka kusoo dhacaysa dhag barbalem la-aan oo yani bilaa dhaaftay 2 bilood bacdi marna la sii hayo waa dhammaatay, hawshaas waa soo xirantay. mushaarka dadweyne oo la siiyo shaqaalaha la siiyo foodora ka qaatay mushaarka ka qaataan. waxaa kaloo kamid ah shaqada inuu qaybshay, waxaa kamid ah mataqaana yani waxyaalo fara badan oo qabtay gudoomiyaha howlkar waay. maamulka gobolka banaadir maamuladii aan soo arkay wuxuu uga duwan yahay runtii oon rabaa inaan halkan ammaan gooniya inaan uga soo jeediyo maamulka gobolka banaadir ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in degmooyinkii gobolka banaadir uu Soomaaliyeeyay oo ka dhigay gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho in ay tahay magaalo la wada leeyahay oo dadka ka wada dhaxayso oo beelihii Soomaaliyeed ay iska wada dhax arkayaan. sidoo kale intaan maamulka hadda uu jiray wax qabadka muuqdo aan runtii ka arki karno waxaa ka mid ah in wadada Sodonka la dhagax dhigay oo runtii xilboole u ahayd Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan gobolka banaadir iyo caasimadda magaalada muqdisho bilicdeeda iyo soo celinta amniga iyo dowladnimadii oo loo sii dhaweeyay dadka deegaanadaas runtii deganaa. markaan arrimaha kale ee hoose usoo daadegno sida runtii maamulka gobolka banaadir oo ula shaqeeyo telefishinadaan aad uga daawadaa, ula shaqeeyo wasaaradaha arrimaha bulshada qaabilsan iyo waxa la midka sida dhalinyaradii maaragtay Soomaaliyeed ama dhalinyaradii gobolka banaadir runtii hadday caawinaad tahay, hadday wacyigelin tahay, hadday qaabilaad iyo in la arko oo gudoomiye gobol iyo inta la midka ay arkaan ay u socoto. runtii xaggaas maamulka markaan eego wax badan u qabsoomay, aad aan soo dhaweynaya. wixii ka dhimanna waan sheegi doonaa waa inay ku daraan. 100 maalin kadib muxuu qorsheynayaa maamulka gobolka banaadir maadaama ay hor yeelaan howlo adag? wax badan baa noo qorsheysan oo magaaladan aan fara kama qodna oo howlo badan baan hortaal magaaladan insha Allah aan rajeynaa inaan qabano. laakiin waxyaabaha aan rabnaa dhamaystirno hadda noo qabsan waxaa ka mid ah la tashigii aan bilawnay dadka Soomaaliyeed la tashano gaar ahaan degmooyinka oo ay runtii talada ay ka go'do inaan la tashano dadka aan weydiino Muqdisho noocay ayay rabaan dadku inaan dadku u sharaxno nidaamka dastuuriga ee baarlamaanka yaala ee magaalada Muqdisho maqaamkeeda inaan dadka u sheegno inaan dadka ku wargelino optionada yaalo ama qaybaha la soo kala sooco saddexda qaybood ee dadka loo soo bandhigay dadka gaarsiino oo ay dadku ay fahmaan waan bilawnay dadku waa gaarnay waxaana ku sii soconaa in heer oo ummadda Soomaaliyeed ka soo gaar ahaan Muqdisho ka soo wada qayb galaan ay talada ka dhibtaan inta ugu dambeynta aan u gudbeyno nidaamka sharciga oo aan ku gaari doono aan baarlamaanka hadduu alla idmo. daawadayaal waxaan guud ahaan halkaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee aan uga hadlaynay waxqabadka 100 maalmood ee maamulka gobolka banaadir